wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qurbe. Dalka Sweden oo kamid ah wadamada Soomaalida qurbaha ay ku barakaceen amaba ay qaxootiga ku yihiin ayaa waqtigan waxa ka jira isbeddello waaweyn. Inta la og yahay waxa la sheegay in wadankaasi la yareeyay tiradii dadka qaxootiga magangalyo doonka ah ee laga soo qaadi jiray daafaha caalamka. Waxa sidoo kale sharci dhawaantan la meel marin doono imtixaanaad la sheegay in loo gali doono qaadashada jinsiyadda wadankaasi. Haddaba qodobadaas iyo kuwo kale oo tiro badan oo saameynaya dadka qurba joogta Soomaalida ee dalka Sweden ayaa waxa aan khadka telefoonka ee Gothenburg aan kula xiriiray Leyla Cali Cilmi oo iyadu ah mudane baarlamaanka dalka Sweden ku jirta lagana soo doorto magaalada Gothenburg iyada oo ka tirsan xisbiga Green Party. Leyla, ugu horeyntii aad ayaan ugu faraxsanahay inaad barnaamijka qurbe igala qayb galayso. Soo dhawow, bal ugu horeyntii waxaad iga warantaa qurba joogta ku dhaqan dalka Sweden ee adigu kamid tahay ee fursadaha helay haday noqoto in dawladda aad kamid noqotaan, kuwa shaqaalaha noqday, kuwa kamid noqday dawladaha hoose, sida Sweden dadka Soomaalida iyo qurba joogtaba ay u tahay waqtigan. wax weeyaan walaal Sweden waa wadan soo galeetiga ama dadka ajaanibta yani qaxooti badan qaabilay xilligan hadda saanaysa waliba qaxootiga Suuriya Soomaaliya ka imaanayaba macnaha wadamada ugu Yurub ama wadanka koowaad yani qaabilaada tirada hadii la fiiriyo wadanka ugu qaabilaada badan weeyaan xagga qaxootiga. Siyaasadoodu waa siyaasad iska furfuran oo wax weeyaan multiculturalism bay ku dhisan tahay siyaasadda Sweden oo qof wax weeyaan adeega wuxuu ku helayaa luqadiisa inkastoo haddana waxa dhinac socda siyaasadda Sweden ku siyaaday kaliya ma aha Sweden laakiin Yurub oo dhan hadii la fiiriyo يعني waxa la dhaho alternative rights ama nationalism ka xisbiyada aaminsan ayaa ku awoodeystay Yurub oo dhan. Sweden oo kale wuxuu xisbiga saddexaad hadda waa Swedish Democrat xisbiga la yiraahdo waa xisbi cunsuriya taana waa laga dareemi karaa wadanka siyaasadiisu inuu isbedel ku yimid maadaama nimankan awoodooda ay siyaaday. waa tahay gabadhii ugu horeysay oo xijaaban muslim ah Soomaaliya ka soo jeeda dabcan haddii aad tahay oo asal ahaan baarlamaankina ku biirtay arrintaasi aragti ahaan siday u arkeen dadkaasi aragtida kuwa fog leh ee dalka Sweden? runtii aniga markii la dooranayay waxa dhaliilo badan oo xagga xirjidka midig ka yimid baa jira oo ay aniga ay dhaliilaan macnaha dadka xaafadaha ajaanibku ku badan yihiin oo kale siyaasiyiinta ka soo baxaya inay yiraahdaan macnaha dadkan ama reer ahaan bay isugu codeynayaan ama jinsiyad ahaan bay isugu codeynayaan taasoo ku ah gaf weyn macnaha dadka Soomaalida ama dadka ajnabiga Swedishka ah xaafadaha social economic ka imid oo kala degan waa macnaha gaf waayo qof walbaba choice-kiisa dimuqraadiyad waa mid u gaara waa mid xaq ugu yeesho maadaama uu muwaadin Swedish uu yahay marka in qof kale uu arinta uu su'aal geliyo ama uu mugdi geliyo ayaa ay gaf ku noqonaysaa dimuqraadiyadda inaga dhan wada ilaalinaysa. waa tahay Leyla, waxaa jirta in sharci la siinayo dadka ama loo ogol yahay magangalyo doonka dalkaasi ku galay ee jooga ee sharciyada haysta eheladooda loona keeni karo, bal taasi sharcigaasi haddaad nooga waranto. walaa waxaa jira horta sharci ku meel gaara oo la galay 2015 wixii ka dambeysay waxa la sharci ku meel gaara oo ku saabsan macnaha magangalyada wadankaanaysa in yani xanibaad lagu sameeyo maadaama 2015 qaxooti fara badan ee Sweden ay timid qaxooti wadanku uu dhaqaale ahaan uusan qaadi karin systemka iyo nidaamkuna uusan u dhisnaynba in qaabilaada noocaas dadweynaha kale inaan qaabilno intaas ummada marka taas waxay keentay in la xanibo ama la xadado magangalyada Sweden laakiin dadkii magangalyada helay heshiiska hadda uu dawladani ay ku dhisan tahay waxa weeyaan dadkii magangalyada helay in dadkooda loo keeno xisbiga anigu ka tirsanahay ayaa u dooday dadka marka sharciga haysta maanta xaq buu leeyahay qofkii ka maqan oo cayladiisa ugu dhow ah in loo keeno xisbiga Greenka milyaarka Sweden baa u dooday runtii dadka. waa tahay marka ma waxay ka dhigan tahay in dalka Sweden magangalyo doonkii uu qaabili jiray oo banaanka laga keeni jiray xeryaha qaxootiyada iyo haddii ay noqoto meelaha wadamada caalamka qaxootiga joogo in la joojiyay mase
guud ahaan dalkoo dhanba ma qaadayo dad magangelyo doono waaba la yareeyeyba may walaashay wax weeyaan lama xanibin laakiin waa la xadaday tirada yacnaha wadankan magangelyo ka codsan kara macnaheedu waxa weeyaan Sweden Geneva Convention-ka waanu ilaalinaynaa ma aha inaan ka hor imaanay laakiin wadanka dhaqaale ahaan tiradii awalan qaabili jirnay qalnamada ma qaabili karno waayo ma jirto yacnihii dhaqaalo dadkaas lagu soo dhaweeyo ama lagu qaabilo waayahay waa gartay tan qaxootiga haddii aan soo qaato qofka haddii uu ka baxo ama dhalashada wadanka uu qaadanayo waxaa jirta in la siin jiro sharciyada hadda imtixaano ayaa lasoo rogay oo qofka jinsiyadda qaadanaya dalkaasi oo xataa la raba aasaasi inuu luuqadii ka barto waxyaabo badan oo awal aan lagu xujeyn jirin dadka magangelyo jinsiyadda qaadanaya taa iyada laftirkeedana maxay tahay walaal waxaa jirta Sweden markii hore horta jinsiyadda imtixaan looma geli jirin muddo 5 sano lagu qaatay jinsiyadda laakiin taa markii laga soo dabo dadka ka yimid Soomaaliya dadka Afghanistan ka yimid jinsiyadda waxay ku qaataan 8 sano maadaama warqadaha ama documentka Afghanistan iyo Soomaaliya loo arko kuwa aan la ixtiraafsanayn marka waxay qaadataa muddo 8 sano hada laakiin heshiiska dawladda lagu soo dhisay oo la dhaho the January agreement heshiiska dhaxa lagu soo dhisay dawladda Sweden hadda ay ku taagan tahay heshiiskaas waxa ka tirsan marka background information kan ku siinaya afar xisbiyood waxay social democratska green party aan ka tirsanahay iyo liberalska iyo xisbi kale la yiraahdo centerka oo isaguna xisbi liberal ah marka xisbiga liberalka ayaa uu xilgeliyay oo heshiiskaas qodob isagu wata ay kamid tahay in imtixaan loo galo haddii jinsiyadda la qaadanayo hadda wixii ka dambeeya sharciga weli ma hirgelin laakiin waa sharci hirgeli doona within the coming years yacnaha ama 2021 ama 2022 buu hirgeli doonaa marka waxay noqonaysaa in markaa imtixaan loo galo jinsiyadda imtixaamada qaabkay noqon doonaan ama habka loo dhigi doono de weli lamaba samayno anigu macnaha midaan wax ka dhiiban kara maaha laakiin waxay u badan tahay inay ku saabsanaan doonto historyga wadankaas ama dhaqankiisa iyo luuqadda qofku inuu uu si buuxda u yaqaano waa gartay sidee ay caqabad ugu noqon kartaa marka dadkii aan wadanka luuqadiisa aqoonin soo galootiga ahaa Soomaalida iyo wadamada kale ee qurbaha dadka ka imaado ee ayagu aan dalka u dhalan ama jinsiyadda si fudud awal ku heli jiray wallahi aniga wadanka mid noqoshadiisu inay badan tahay baan aaminsanahay waayo integrationka ama la qabsiga wadanku wax weeyaan wax lagu cabir karaa ma jirto waxbarashada qofka bini'aadamkaana siduu luqad u bartaa ama wax u bartaa waa wax shaqsiga ku saabsan moogtahay mana u arka sharcigan inuu yahay sharci lagu soo reebi karo dad badan sababtoo ah dadku way kala fursado duwan yihiin waxa jira macnaha qof aan fahamadiisu fiican waxa jira qof waayeel ah macnaha marka sharci yacnaha dadkaas oo isku mid ah yacnaha ma sharci dadku wada dhaqan kara marka anigu waan u arkaa inay caqabad ku tahay yacnaha dadka dadaalkooda maadaama aan u arko in arrintan ay ku noqon kartaba in dadka wadankan imaanaya inayba sharciyo waaweyn ka qabtaan maadaama la adkeeyey waayahay aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa fursadaada Leila Cali Cilmi adigoo kamid ah baarlamaanka dalka Sweden inaad barnaamijka qurbe iigu warantay waa tahay walaashay waa maasha guud ahaan barnaamijkii qurbe waa naga intaa barnaamijka qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegnay sharciyada dalkaasi Sweden ee isbedbedelaya iyo saameynta dadka qaxootiga ah qurbe joogta ah gaar ahaan Soomaalida uu ku yeelan karo halkaasi waxaana marti iigu ahayd Leila Cali Cilmi oo iyadu ka tirsan xisbiga Green Party ee dalkaasi Sweden lagana soo doortay Gothenburg kana mid ah xubnaha baarlamaanka ee dalka Sweden barnaamijkii qurbana waa naga inta midkaan mid lamid ku kulmi doonana nabadgelyo